الرحيم مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda ciidamada amniga bahda saxaafadda marti sharafta kala duwan iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh marka hore waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kalsoonidii uu magacaabay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 17kii bisha September ee 2020 ina siiyay fursadan qaaliga ah sidoo kale waxa aan guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh uga mahadcelinayaa fursadan taariikhiga ah oo aan idinkuga hor imid iguna siisaan codkiina kalsoonida waxa kale ka mahadcelinayaa soo dhaweyntii iyo taageeradii ay isiyeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay dunida ka joogaan mudanayaal imarwooyin sida aan mar hore idin sheegay waxa iga go'an in aan soo dhiso xukuumad tayo leh oo ka tarjumaysa marxaladda aan ku jirno iyo baahida dalka meel marisana hanaan doorasho oo xor iyo xalaal ah hadduu aleedmo heshiisna lagu wada yahay mudanayaal imarwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaan rajaynayaa in aad siin doontaan xukuumadda aan soo dhisi doono iyo barnaamijkeeda codka kalsoonida marka aan idin hor keeno si ay u gutaan waajibaadka baaxadda leh ee hor yaalla hadduu Allah subxaanahu wa ta'aala idmo waad mahadsantiin